Bismillaahi Raxmaani Raxiim walaalayaal kusoo dhawaada kanaalkeenan Faa'iida Cooking meel kastoo adduunka ka joogtiin fadlan waxaan ka codsanaynaa inaad noo subscribe noo like gareysaan noo share gareysaan mahadsanidin waxaan sameysanay rootigan iyo hilibkan isku dhex jiro ayaan sameysanay waa hilib hogtog ah maasha Allah si aad iyo aad u fiican oo ciyaalka raba insha Allah tacaala inaan casho uga dhigto ama casho ama quraac mid ka tartaad ka dhiga kartaa qadaad ka dhiga kartaa wala maasha Allah oo ciyaalkan aad ugu fiican hadda waxaan idin leeyahay sidaan u sameeyana hadda daawasho wacan bismillaah meeshan waxaan ku haystaa hal bakeeri oo bur ah waxaan ku darsanayaa oo kale half oo bur aan rabaa inaan ku daro waa hal bakeeri half isku noqonayaan soo bakeeri waa magaceena kanaalkeena magaciisa waaye saa u jeedinba ana sidoo kale halkan waxaan ku haystaa hal qaado subag ah subag fadhiyo waaye waxaan haystaa bakin waa hal xabo bacda yarta waaye vanilla iyadana bacda yarta waaye hal xabo ah cusbo yar tir ayaan haystaa qamiirkana waan ku soo daray qaado hafkeed oo sokora waxaan haystaa laba xabo ukun ah sidoo kale caano ayaan haystaa waxay caanaha marka tartiib aan ugu darayaa iyaga dhan hal mar ku daraayo si oo maaragtay sababtoo waxa waa duu ka biyo hada hal mar iskaga shubtaa duu rab waa ka biyoobi karaa oo biyo ka noqon karaa marka tartiib iskaga shubo rabaa si fiican inaan u cajiimaan rabaa oo maaragtay uu hadhowdiisi uu beela ay ugu fidsamo insha Allah wax marka la cajiimo qurux ayay hadhow noqdaan laakiin marka si fiican aad u cajiimo waxa qurux ma ku noqonayaan fiican u saaciimaya marka fiidiyogan aad u dheeraado insha Allah taala 30 daqiiqo camal aan sugina ama 25 daqiiqo hadda waa uu ii soo kacay marka waxaan suubinayaa xogaa waa yaryarayna si oo waxaan rabaa yaryaro inaan ka dhigto sameystay marka meelaan dhiganayaa saana dhahayaa sidaan rabaa dhexda inaan ugu kala jaro waxaan haystaa maxay ahayd hogtogan waa hilibka hogtog laga sameeyo ayaan rabaa inaan sameysto waxaan rabaa sidaan sameynayaa insha Allah
saana rooti uga dhigaya rooti u dhexda hilib uga jiro camal saan dhahin ka marka ciyaalka loo sameeyo maasha Allah sida ilmaha u jecel yihiin lagama sheekeyn karo sana ku soo dhameynaya isaga dhan waxyaaba ciyaalku xiiseeyaan oo kale maasha Allah markii saan loo sameeyo aad u macaan yahay ciyaalku way jecel yihiin kale si lahayn xaynayaan ciyaalada maaragtay iskoolka aadoo kale iyo saan hadaa ugu sameyso oo iskoolka iskaga ritaan weelkooda cuntada maasha Allah ayuu u yahay afbasi ma rabaa didan ku jaran saasa ku soo dhameynaya isaga meeyay xoogaa 10 daqiiqana waa soo sugaya si uu maarta xoogaa yar uu u fuuro marka halkan waxaan ku haystaa caano yar iyo subag aan soo mariyay ayaan rabaa inaan korka ka mariyo si uu ugu gaduuto ayaan rabaa inaan uga dhigto soo rootiga inuu gaduuto waayo moogta هذا فرناdan soo gelinaya insha Allah intuu ka bislaanayo marka soo bixiyaan insha Allah isla arki doonaa saxaabi waa ka saad dabka waa ka soo baxshay maasha Allah sidaas quruxdu badan ayuu ku soo baxay oo laga sheekeyn karin hadda waxaan idin leeyahay ciyaalka ha loo sameeyo alaabtan maasha Allah ciyaalka ku tahay aad ay u jecel yihiin hadda waxaan idin leeyahay iskool ama magaciisa wax walba u qaadan karaan hadda waxaan idin leeyahay إن شاء الله تعالى ذات قربها جوابا إيه استان رابطان إن إلمها أسميان خير بدنا أيدين دافويا
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin walaalahayga qiimaha iyo qadarinta mudan oo sida sharafta ku jirtay aad u fiirsateen fiidiyowgan. Fadlan haddii aad ka hesheen ha ka iloobinina inaad subscribe garaysaan, like garaysaan, share garaysaan. wixii comment aad ii dhaaftaan. Waxaan kaga tegayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.